aad baan maartay ugu faraxsanahay inaan maanta natiijadii imtixaanaadkii qaran ee KCSE ee 2020 oo maanta soo baxday saacado ka hor natiijadaas soo baxday baan aad ugu faraxsanahay anigoo ah maamulaha guud ee iskuulaadka Bahadwaaga ee Bushra waxaan dhammaan ugu hambaleynayaa mujtamaca Soomaaliyeed gaar ahaan bahda Bushra ardayda macallimiinta iyo waalidiintaba natiijada aad u farax badan ee maanta aan gaarnay waxaan isleenahay sanadkan wuxuu ka mid yahay sanadihii noogu fiicnaa taariikhda la soo maray waxaan sameynaynaa imtixaankii dugsiga sare ee 6aad baan sanadkan sameynaynaa ardayda B+ noo keentay maxamedow hadda yani waxaan wadnaa wali natiijooyinka aan fiirinaynaa reportka iyo information aan bixinayno kama dambeys ma ahan maxay numberka ardayda uu badan yahay SMS baa lagu fiirinayaa khadku waa culus yahay marka tirada hadda aan hayno waxaan haynaa 12 arday oo B+ ah 9 arday oo B+ ah 26 arday oo B- ah 30 arday oo C+ ah ilaa hadda waxaan haynaa dhowr iyo 80 arday oo C+ ka sareysa ardayda noo sameysay 156 arday bay ahaayeen arday badan wali maana gaarin ardayda hadda imtixaanaadkooda aan aragnay ilaa hadda waxa aan hayno wax ah nooguma jiraan wax dhiyaan ilaa hadda maanan arkin hadda aan fiirinay maxamed oo 100 arday gaaraysa 100ka arday aan fiirinay waxay ku jiraan B iyo C bay ku jiraan B+ ilaa hadda waxaan haynaa 12 arday B+ waxaan haynaa 9 arday B- waxaan haynaa 26 arday C+ waxaan haynaa 30 arday C+ waxaan haynaa 7 arday C- waxaan haynaa 5 arday ilaa hadda waxaan haynaa 80 iyo dhowr arday oo boqolka u horeysay aan fiirinay ah kamid ah baan haynaa oo kulligood dhammaan C iyo B ku wada jira marka loo fiiriyo waxaan ogaan doonaa saacadaha soo socda celceliska rasmiga ah ee ardayda sanadka waxa uu noqon doono laakiin aad bay maartay u tahay wax lagu farxo 150 iyo ziyaado arday oo boqolka arday u horeysay hadda aan fiirinay oo kuwa gadaal aan ka fiirinay iyo dhexda iyo horeba aan ka fiirinay ilaa hadda wax dhiig aysan ku jirin wax fudud maahan marka waxa la oran karaa sanadkan qiyaas hadda aan hayno waa sanadihii noogu fiicnaa sanadkii noogu fiicnaa 6 sano la soo dhaafay marka loo fiiriyo imtixaanka qaran ee KCSE aad baan u faraxsanahay ilaahay baan subxaanahu wa ta'aala u mahad celinaynaa waxaan u mahad celinaynaa dhammaan waalidiintii ardaydii iyo macallimiintii ka qayb qaadatay natiijada noocan oo kale ah waxaanan aaminsanahay in ilaahay subxaanahu wa ta'aala maartay uu fadligaas iska leeyahay cid allaale ciddii garab ka geysatay oo farxadda iyada ah iyo horumarkaas qayb ka ahayd waa uga hambalyeynayna oo ardayda ay ka mid yihiin macallimiinta ay ka mid yihiin aad baan u faraxsanahay maxamed markaad fiiriso caqabadihii koronaha iyo hawlihii kala duwan waa soo natiijada sida la filayay guud ahaan sanadka ardayda saxaanka sameysay waxay soo mareen xilli dheer oo aysan waxba baranin oo guryaha joogeen oo corona uu jiray halkan aan joogno dhadhaab ama xeradan xaga dheer xero qaxoonti ah kama suurtagelayso in ardaydu ay online programs wax ku bartaan way ka suurtageli way adkayd ayadoon online program aysan haysanin oo wax badan oo maartay ardaydu ay u baahnayeen ay laayeen ardaydan ayay haddana natiijada intaas la keeneen karoonihiina waxaad moodaaba inuu maartay waxba u dhimin oo faa'iido ay u ahayd marka aad iyo aad marka loo fiiriyo baqdinta la qabay iyo meesha ardayda yani maartay sida wax maartay wax uga maqnaayeen iyo darajada ay keeneen waxaan isleeyahay wax aad looga hambalyeeyay weeye haddii ay jiri lahayd arday inuu full waqti qaadan lahaayeen waxay tusaale u tahay darajo tan ka fiican inay keeni lahaayeen